ilhaan cumar ayaa qarka u saaran inay mar kale taariikh ka samayso siyaasadda dalka Mareykanka iyadoo la filayo inay ku biirto aqalka Koongareeska Mareykanka. ilhaan oo u sharaxan kursiga xisbiga dimuqraadiga ee xaafadda shanaad ee gobolka Minnesota ayaa doorashada maalinta Talaadada la filayaa inay ka adkaato Jennifer Zelensky maadaama xaafaddaasi ay tahay meel ay dimuqraadigu ku badan yihiin. waxa waaye tartan oo xiisa badan leh dad badan ay ka qayb galayaan oo taariikhi noqon doona insha Allah. ilhaan ayaa haddaba marka ay ka mid noqoto Koongareeska waxa ay noqon doontaa gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah ay aqalkaasi ku biirta. ilhaan oo 36 jir ayaa gobolka Minnesota timid muddo haatan laga jooga 20 sano waxaana ay sheegtay in ku biiritaankeeda Koongareeska ay fursad weyn u tahay Soomaalida. in aan fursad u helno anagoo Soomaali ah oo qaxooti ah 20 sano wadanka joognay in aan maanta Congress aadna waa wax cajiib ah oo dadka dhan aan u maleynaya in ay ku farxi karaan. To move our